badankeenu waxaynu aaminsannahay in dadka caanka sida jilaayaasha iyo fanaaniintu ay yihiin kuwo had iyo jeer murugsan ayna qabaan cudurro nafsi ah taasina ay ku dhalisay inay isdilaan laakiin xaqiiqdu sidaad mooday ma ahan badee dadka caanka waxaa loogu baaqaa inay kusoo biiraan ururka maasuuniyadda dadka qaarkood waa ay diidaan inay kusoo biiraan hal kuwo kalena ay aqbalaan si ay lacag badan u helaan magacoodana ay kor u sii qaadaan haddii aad marba siixidid inaad ururkan kusoo biirto iska ilow inaad heshiiskooda ka baxdo ama xitaa aad isku daydid inaad sirtooda bannaanka keentid oo haddii aad sidaas samaysid maalintaas ayaa nololku ugu dambayso haddaba maanta waxaynu halkan ku soo bandhigaynaa 5 qof oo caan ka ahay dunida dhammaanteennuna aynu wada garanayno kuwaas oo ay dileen maasuuniyiinta balse marka hore intaynu muuqaalka u gudagelin waxaynu kaa codsanaynaa inaad like saarto fiideogan haddii ay tahay markii kuugu horraysay ee janaalkeena soo boqoto fadlan taaba calaamadda subscribe-ka oo rukuma janaalkeena nambarka ugu hore aynu ka hadlayna waa fanaankii iraabistaha caanka ahaa ee Tupac Shakur sababta ugu weyn oo Tupac Shakur loo dilay waxay ahayd inuu ka soo horjeedo maasuuniyadda iyo Illuminati badi heesihiisa waxa uu ku muujin jiray carada iyo ciilka uu qabo ururadan iyo madaxda galbeedka qaasatan kuwa Mareykanka inta badan Tupac waxa uu ka hadli jiray arrimaha siyaasadda iyo bulshada iyo cunsuriyadda lagula kaco dadka madowga ah iyo weliba dagaaladii xilligaas ka socday bariga dhexe waqti ka mid ah waqtiyadii uu noolaa Tupac waxa loo soo bandhigay $100,000 Mareykan ah si uu matalo doorka nin burcad muslim ahay oo islaamka suurad xumeynayay laakiin Tupac Shakur waa uu diiday inuu wax ka matalo filimkaas waxa uuna yiri waxay iska indhatireen oo ay moodeen inaan anigu raganimadeedii iyo mabaadi'deedu ka tagayo intaas kadib fanaankan waxa loo taxaabay jeelka mid la yaab kale ayaa ah markii uu durba Tupac xabsi ka soo baxay waxa uu sameeyay album oo ugu magac daray Illuminati oo uu la jeedo dilaaga Illuminati ama maasuuniyadda laba bil kadib markii uu albumka soo baxay waa la shirqoolay Tupac arrintan waxay dhacday 13 September 1996 shakhsiga xiga waa Bob Marley dhammaanteen waxaynu aaminsanahay in Bob Marley uu si caadi ah u geeriyooday maxaa yeelay badi warbaahinta caalamka waxay soo wariyeen in Bob Marley uu geeriyooday xanuun loo yaqaan melanoma skin cancer kaas oo ah kansar ku dhaca maqaarka waxayna sheegeen in kansarkan uu ka soo bilowday lugihiisa uuna Bob Marley diiday in xubnihiisa la jaro si kansarka loo joojiyo kadib 6 bilood kansarkii waxa uu ku sii fiday Bob ilaa uu gaaro maskaxda taas oo keentay inuu geeriyoodo laakiin xaqiiqdu waxay tahay in maasuuniyiintu ay door weyn ku lahaayeen ka takhalusada Bob Marley maxaa yeelay Bob waxa uu ka mid ahaa dadkii ka soo horjeeday maasuuniyadda waxa uuna hesiis ku difaaci jiray xuquuqda dadka madowga ah soo kale fanaankan waxa loo tiray inuu ka mid ahaa fanaaniinta ugu saameynta badnaa qarnigii 20aad ee la soo dhaafay dhammaan cadeymahan waxay muujinayaan mid macquul ah haddaba waxaynu dhihi karnaa Bob Marley waxa shirqoolay maasuuniyiinta taasina waxaa daliil ah markii uu wiilkiisa lagu magacaabo Ziggy Marley uu mid ka mid ah waraysiyidiisa ku sheegay in aabihiisa la shirqoolay isagoona yiri dhammaan hadallada ay dadku isla dhex marayaan oo ah in aabbayga uu kansar u dhintay laakiin waxaa jira shaki ah in uusan aabbayga u dhiman kansar shakhsiga xigana waa Michael Jackson fanaankan la sheego inuu ahay boqorka boobka kaas oo la wareegay carshigada muusikada caalamiga ah maamulayna wax ka badan 30 sanadood waxaa lagu tiriyaa inuu ahay fanaanka ugu badan ee albumadiisa laga iibsado caalamka oo dhan Michael waxa uu la kulmay weerar badan oo dhanka warbaahinta iyadoo lagu bahdilay sumcadiisa laguna kicinayo dadweynaha welina sababta geerida Michael Jackson waa mid qarsoon oo aan cadeen Latoya Jackson oo ah Michael walaalkiis ayaa sheegtay in geerida walaalkeed ay ahayd mid shirqool ah dhakhtarkiisuna uusan waxba ka ogeyn arrintan mid la yaab kale ayaa ah in geerida Michael ay ku soo aaday xilli uu ku fikirayay inuu diinta islaamka qaato waxaana xusud mudan in walaalkiis lagu magacaabo Jermaine Jackson oo uu yahay muslim waxayna maasuuniyiintu ka baqeen haddii uu Michael islaamo in dad badan ay gacantiisa ku soo islaamaan horeyna Michael waxa uu hesiis kula dagaalami jiray kooxahan qarsoodiga oo ugu horeysa maasuuniyadda waxaana dhowr jeer handadaad kala kulmay kooxahan mid ka mid ah handadaadaasina waxa uu ku waayay naftiisa shakhsiga xigana waa John F Kennedy kaas oo ahaa madaxweynihii hore ee Mareykanka mid ka mid ah waraysiyaddii John F Kennedy waxa uu sheegay inay jiraan ururo badan oo qarsoodi ah kuwaas oo ku sugan dalka Mareykanka wuxuuna carab ku adkeeyay in laga hortago ururadaas haddaba shirqoolka John F Kennedy ma aysan ahayn marka laga reebay in maasuuniyiintu aysan doonaynin in ninkan uu xilka sii hayo ururkan xitaa waa ay sugu waayeen hal sano ilaa uu ninkan xilka ka dagayo si ay u helaan bedel isaga ka fiican halkan waxa uu noqday inay u jiraan tikadka geerida maasuuniyiinta John F Kennedy xitaa kuma aysan xishmeyn aabihiis kaas oo ahaa Illuminatiyiinta waaweyn welibana saaxiib la ahaa Anthony LaVey kaas oo ahaa aasaasihii kaniisadda shayaadiinta horeyna waxa uu ninkan ka qayb qaadan jiray meelaha lagu soo bandhigo dhaqamada shayaadiinta ilaa uu markii dambe furtay kaniisad u qaas ah shayaadiinta uuna ugu magac daray kaniisadda shayaadiinta waxaana John F Kennedy dilay nin horey uga tirsanaa ciidamada Marines Mareykanka kaas oo lagu magacaabo Lee Harvey Oswald isla maalintii xigtay markii ay booliisku soo qabteen Lee Harvey oo ayna doonayeen inay su'aalo weydiiyaan ayaa nin hubaysan toogtay waxaana ninka falkan geystay lagu magacaabo Jack Ruby kadibna booliiskii waxay dileen ninkii Jack Ruby ahaa sidaasna ayaa kiiskan dhan lagu soo xiray iyadoo aan la ogaan cid ka soo adeegsatay labadan nin oo midkood madaxweynuhu dilay ama sida loo wada yaqaano Princess Diana shirqoolka Amiir Diana waxa uu ahaa mid qarsoodi ah oo aan la ogeyn laakiin inta badan waxa farta lagu fiiqay in shirqoolkeeda uu ka dambeeyay qoyska boqortooyada Britain
siiba amiir Philip kaas oo ahaa xaaska boqorada Elizabeth labaad. sababtan waxay ahayd in mar walba ay amiir Diana uu khilaaf kala dhaxeeyay ninkeeda lagu magacaabo amiir Charles waxayna khiyaantay dhowr jeer isagana sidaas oo kale ayuu sameeyay. amiir Diana waxay doonaysay inay goosto Cimaad al-Fayd kaas oo ahaa wiilka milyaneerka Misriga ah ee lagu magacaabo Maxamed al-Fayd. arrintan raali kama aysan ahayn maasuuniyada soo kale waxay ku cariisnaayeen in qoyska boqortooyada uu islaamka soo galo ayna amiirada diinta islaamka qaadato iyagoona mar walba maasuuniyiinta ku dadaalaya inay suurad xumeeyaan islaamka si ay diinteena suuban uga difaacaan inay ku faafto caalamka galbeedka iyo walibana inay taageeraan Israa'iiliyiinta islaamka ka soo horjeeda. ugu dambeyn amiir Diana jaceelkeeda Cimaad al-Fayd iyo darwalkii baabuurkeeda wadayay waxay ku geeriyoodeen shil gaari oo ka dhacay magaalada Paris ee dalka Faransiiska taariikhdu markay ahayd 1 Agost 1997 waxaana loo badinayaa in amiir Charles uu amiirada u adeegsaday ururka maasuuniyada sidaasna ay ku soo afjareen. intaas ayaynu maanta muuqaalkeena ku soo ekeynaa fadlan haddii aad video ka heshay like saar haddii aadan weli nagu soo biirin taaba calaamada subscribe oo nagu soo biir mahadsanid.